بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يا محله قلبته قلب جمعة كوبي لا تنك بش جماد الثاني كن أفر بقول كوبي أفرتن وافقسن أفر يتوبك بش اللبات لبكون يلباتن وحن جعلها إن قعد ده هالكمسألة حاجة شريعة الإسلام كعلاقة له مهمة جارنا أولى مسألة سكو صابسن waqfiga wixii loo bixiyo meel gaara ama si gaara oo loo waqfi looga dhigo meel gaara looga dhigo in waqfigaasi sidiisa loogu talagalay inuu u soconayo sharciga islaamka waqfi aslan waxa la yiraahdaa shaygi oo laga joojiyo ku tagrifalka iyo in si kale loo bedelo manfaacadiisana la adeegsado cidii loogu talagalay maalmaha u dambeeyay waxa taagnaa jiray magaalada Wajaale degmada Wajaale xabaalo loogu talagalay dadka deegaanka in lagu aaso oo xabaalahaas uu bixiyay madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siiraayo oo cabir go'an lahaa oo xag dhanna u ahaa 120 mitir xag kale 1 mitir oo ahaa xabaalahaas loogu talagalay dadka deegaanka in isku aasaan in maalmaha u dambeeyay hadal ka taagnaa xabaalaha eerida xabaalaha in loo isticmaalo marka tilmaan kale ama si kale ka duwan si loogu talagalay hadii ay tahay in wasaarad la siiyo oo wax ka dhisato ama in la siiyo qof gaara oo wax ka sameesto inaan cadeeyno shariicada islaamka waxay ka qabtaa meel loogu talagalay xabaalo oo loo waqfiyay waliba uu bixiyay cid gaara oo madaxweyne dal oo muhiimad gaar ah siinaya inaan bayaamiyo shariicada islaamku xabaaluhu waxay leeyihiin in iyagu yeesheen iyaga loogu talagalay lagu aaso si kale aan loogu tagrifalkin saadaradeed dadka aan aqoonta fiican u lahayn ama sharciga islaamka wuxuu ka qabo aan dareensanay inaan dareensiino shariicada islaamku waxay cadeysay meesha waqfiga ah gaar ahaan xabaalaha loogu talagalay inay xabaalaha sunahanayaan aan la iibi karin aan la bixin karin aan la dhaxli karin aan la bedeli karin sifa kasto ka duwana oo xabaalaha aan ahayn aan loo isticmaali karin sida daraadeed waxaynu cadeynaynaa mas'uuliyiinta dalka gaar ahaan cid khusayso in xabaalaha xabaalimadooda loo ilaaliyo sidoo qofka bini aadamku wuxuu mulkiyo ee wuxuu u yeesho hantidiisa gaarka aan looga taaban karin yaan xabaalaha looga taaban karin masalada waxa uu aasaasa xadiidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiidkii Umar ibn Khattab nabigu ku yiri asalkeega tasaddaq bi asliha qeylo annahu la yuhabu wala yubaacu wala yurath nabigu kaleey salaatu wasalaam asalkeega sadaqayso waqfi ka dhig hasa ahaatee lama iibin karo lama hibayn karo lama bixin karo sidaas ee shariicada islaamku ay qabtaa dadiyuga marka ay khusayso madaxda muslimiinta ugu horeeyay madaxda degmada ugu horeyso ay ku xigtay madaxda gobolku iyo wasaaradaha ay khusayso inuu yahay sharciga islaamku dalka sharciga ugu sareeya waxaana ballayno ahayd in shariicada la ilaaliyo xeerarka dalka in la ilaaliyo xeerarka dalkana waxa ugu sareeya shariicada islaamka iyo ka muhiimka sida daraadeed dhulka Wajaale ku yaala ee xabaalo loogu talagalay waxaan jecelahay in sharciga islaamka aynu raacno gaar ahaan waxay aad u khusaysaa masaladaas maadaama mas'ala sharci tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta inay bayaamiso cadeyso sida sharciga islaamku u cad yahay oo u dhigto qodobkaasi oo qodob muhiimadiisa la weeyay sida daraadeed waxaynu xoojinaynaa xabaalahaasi sida shariicada islaamka ay qabto inaan cid kale la siin karin cid waxna loogu bedeli karin si kale aan loo bixin karin aan la dhaxli karin intay intifaac leeyna intifaacsanayna sidaad ay ahaanayaan ilaahay waxaan ka baryanaa in noqono dadka khayrka iyo wanaaga maqla ee qaata ee ku amal fala taas ilaahay subhanahu wa ta'ala waan ka baryanaa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi